kun mar bas ayaan akhrin jiray maalin walba. Waxaan ku arkay isbeddel aad u weyn oo ku saabsan noloshayda. Waan ku guursaday, Ilaahay wuxuu igu siiyey awlaad. Waxaan kaloo helay guri aad u weyn oo aan aniga mulkiyadiisa leeyahay. Alxamdulillaah, ilaa iyo maanta waan wadaa oo kama tegin. Halkii aan 1000 mar akhrin jiray, maanta waxaan akhriyaa 10,000 oo mar. Ilaahay wax walba oo riyadeyda ahaa ayuu ii rumeeyey. Wuxuu i siiyey xoolo fara badan. Maanta aad baan u nimcaysanahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan walaalaha khayrka jecel ee nagu xiran, soo dhawaada, ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan. Waxaan filayaa inaad nimcaysan tihiin oo barwaaqaysan tihiin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa caafimaad taama, nimcooyinkuu na siiyey inuu noo laazimo. intii dhibaataysan uu Ilaahay dhibaatada ka qaado, intii kurbaysan kurbadaha ka qaado. Qof walba muraadkiisa oon macsi lahayn Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha siiyo. Soo dhawaada asxaabteena. Maanta waxaan ka hadli doonaa qisas ku saabsan istighfaarta iyo qofka inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiisto. Dadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaafka weydiisto, dadka kale lama sinno. Istighfaarta ama dambi dhaaf weydiisashada Ilaahay waxay leedahay faa'iidooyin badan. Waxay sabab u noqonaysaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dambi dhaafo oo uu ku siiyo xasanaad. Waxay sabab u noqonaysaa inuu Ilaahay kuu barakeeyo xoolahaaga, caafimaadkaaga iyo noloshaadaba. Istighfaarta waxay sabab u noqonaysaa inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadaada ajiibo. Waxay sabab u noqotaa in roobka lagu helo. Istighfaarta waxaa lagu helaa awlaad, waxaa lagu helaa caafimaad. Istighfaarta waxa ay daawo ka tahay murugada. Ilaahay balaayooyinka ayuu kaaga dulqaadayaa. Marka faa'iidooyinkaas oo idil ayay leedahay. Waxaan u gudagalaynaa qisaska laga arkay istighfaarta. Qisadeena koowaad waxaa inooga sheekaynay wiilkani wuxuu leeyahay waxaan bilaabay inaan akhriyo istighfaarta 1000 mar ayaan maalintii akhrin jiray. 1000 mar bas noloshaydii ayay bedeshay ayuu yiri. Waan ku guursaday oo guur ayaan ku helay. Awlaad ayuu Alle igu siiyey. guri aan aniga leeyahay ayaan helay. Nimcooyinku Ilaahay i siiyey waxay noqdeen mid isdaba joog ah oo taxana ah ayay noqdeen. Haddaba markii aan arkay faa'iidada ay leedahay istighfaarta iyo sida ay noloshayda u bedeshay iyo muddada kooban oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku bedelay noloshayda. Markii aan arkay faa'iidada ay leedahay waan laba jibaaray. Maanta waxaan akhriyaa 10,000 oo mar ayaan akhriyaa istighfaarta. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dareemay noloshayda oo dhan fudeed inuu iga dhigay. Wax i cuslaysiye ma jiro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolo fara badan ayuu i siiyey. Maanta barwaaqo aan ka sheekeeyo ayaan ku noolahay. Qisadeena labaad waxaa inooga sheekaynay wiilkan wuxuu leeyahay mushkilo aad iyo aad u weyn ayaa i haysatay. hal mar ayaan akhriyay 5,000 oo mar oo istighfaar. Astaghfirullah wa atuubu ilayhi. Astaghfirullah wa atuubu ilayhi. 5,000 oo mar ayaan geeyay. hal mar oo kaliya ayaan geeyay 5,000 oo mar. Ilaahay subxaanahu wa tacaala mushkiladii waa ii xalliyay. Farxad ayaana la ooyay ayuu yiri markuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ii xalliyay mushkiladii. qisadeena xigta waxaa inooga sheekaynay wiilkani wuxuu leeyahay waxaan ku jiray cariiri aad iyo aad u fara badan oo xagga dhaqaalaha ama maalka ah. cariirigaasoo aan naftayda heer aan nacay aan gaaray oo dadka ay dhibsadaan oo dadka i nacaan oo aan noqdayba qof hore la'aan dartiisa ay dadka u dhibsadeen oo asna naftiisa dhibsaday. Waxaan bilaabay ayuu yiri inaan istighfaarsado Ilaahay subxaanahu wa tacaala. markii aan istighfaarsaday oo muddo kooban aan wadayna meel aanan filaynin ayuu Alle subxaanahu wa tacaala iga siiyey faraj. qisadeena kale waxaa inooga sheekaynaysa gabadhani waxay leedahay Ilaahay baan ku dhaartay markii aan laazimay istighfaarta Ilaahay wuxuu i siiyey faraj aan filaynin, meel aanan ka filaynin. arrimahaygii oo idil Ilaahay waa ii fududeeyey. mushkiladihii i haystay iyo culaysadii i haystana Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu i xalliyey. hadduu culays ku haysto, hadday mushkilo ku haysato, hadday dhibaato ku haysato, wax walba Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay gacantiisa ku jiraan. arrimaha xalkooda Ilaahay xaggiisa u carar. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiiso. qisadeena xigta waxaa inooga sheekaynaysa gabadhani waxay tiri waxaan muddo raadinayay awlaad ayaan muddo raadinayay. markii dambe ayaa waxaa la igula taliyay inaan istighfaarsado. istighfaartii ayaan bilaabay ayay tiri.
alxamdulilaah ilaahay wuxuu si degdeg igu siiyey mataano wiilal ah, 2 wiil oo mataano ah ayuu alle subxaanahu watacaala isiiyey. Istighfaartu way ii shaqaysay ilaa iyo maantana waan wadaa. Waxaan usoo gudbinayaa qisadayda si walaalo badan ay uga faa'iidaystaan. Qisadeena xigta waxaa inooga sheekaynaysa gabadhani waxay leedahay 5 sano oo aan culays iyo dhibaato ku jiray kadib waxaan bilaabay istighfaar. Ilaahay subxaanahu watacaala muddo 1 bil gudaheedna waa uu iigu fududeeyey arrinkii iyo culayskii i haystay muddada 5 sano ah. qisadayna xigta waxaa inooga sheekaynaya wiilkan wuxuu leeyahay wallaahi waxaan ka cabanayay murugo iyo dhibaato, sidoo kale waxaan ahaa ayuu yiri qof aad iyo aad u waswaas badan ayaan ahaa. Markii aan bilaabay istighfaarta Ilaahay subxaanahu watacaala wax walba oo dhibaato ah iyo murugo ah ee i haystay iyo waswaas i haystay Ilaahay subxaanahu watacaala waa ii fududeeyey. waswaaskii ihay waa iga qaaday, nariwadii i haysayna Ilaahay subxaanahu watacaala waa iga qaaday. Ilaahay wuxuu i siiyey deganaan. alxamdulilaah noloshaydii waxay noqotay nolol degan oo aad iyo aad u qurux badan. qisadeena xigta waxaa inooga sheekaynaysa gabadhaani waxay tiri noloshayda waqti ka mid ah waxaa isoo maray oo aad iyo aad u adkaa. waxaan in muddo raadinaya ayay tiri awlaad. markii dambe ayaan waxaan bilaabay inaan akhriyo istighfaarta iyo sidoo kale suuratul baqara. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu i siiyey awlaad ayay tiri alxamdulilaah. astaghfirullah qaabkaas aynu akhrin jiray ayay tiri. suuratul baqarahna waa laazimi jiray. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri akhduhaa baraka wa tarkuhaa xasra walaa yastadiicu minha albadala. suuratul baqara akhrinkeeda faa'iido iyo baraka ayay leedahay. dadka xaasidiinta iyo maakiriinta iyo dadka wax sameeya wax sixrana qofka suuratul baqara akhri wuxuu helayaa baraka fara badan. marka waa suurad aad iyo aad u qiimo badan iyo istighfaarta ayaan akhrin jiray ayay tiri. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu igu siiyey awlaad. qisadeena xigta waxaa inooga sheekaynaysa gabadhaani waxay tiri waxaa iga soo daahay guurkii oo sanado badan aad u badan ayaan sugayay guurkii. qof walba wuxuu leeyahay waad dhaaftay waqtigii aad guursan lahayd, waad gabowday, maxaa kugu dhacay iyo hadallo kale. waxaan bilaabay ayay tiri istighfaarta. Ilaahay subxaanahu watacaala waa igu guuleeyey oo istighfaarta markii aan bilaabay muddo kooban kadibba alla subxaanahu watacaala wuxuu i siiyey guur wali nin wanaagsan. qisadeena xigta waxaa inooga sheekaynaya wiilkan wuxuu leeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa markhaati ka ah istighfaarta markii aan bilaabay. Ilaahay wuxuu iga guday deyn aad iyo aad u fara badan oo xaddigeeda uu dhannaa $500,000. lacag $500,000 ah ayaa laygu lahaa oo alla subxaanahu watacaala iga guday markii aan akhriyay istighfaarta ayuu yiri wiilkan. haddaba faa'iidooyinka istighfaarta aad ayay u badan tahay. istighfaarta waxaa laga helaa raxmad, waxaa laga helaa dambi dhaaf, waxaa Ilaahay subxaanahu watacaala dadka ku fiyaa roob. waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka lagu helo xoolo, waxaa lagu helaa awlaad, waxaa lagu helaa wanaag oo idil. sidoo kale Ilaahay subxaanahu watacaala balaayada ayuu kaaga dulqaadaa. waxaad yeelanaysaa awood oo qof awood leh ayaad noqonaysaa markaad istighfaarsato. ku dadaala istighfaarta insha Allah. u shargaray walaalaha kale si uga faa'iidaystaan. mar walba noqo qof khayrka shargareeyo. qofkii dadka wax khayr leh tuso wuxuu la mid yahay asagoo sameeyo kale. maanta arrin khayr la ayaad faafisay, qof ayaa sameeyey, qofkaas ajarkiisa uu leeyahay, adigana waad leedahay. sidoo kale dadka xumaanta faafiya waxa xun faafiya dembiga dhinacun bay ka yeelanayaan. marka khayrka mar walba hala faafiyo. waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel. muuqaalka like saara, usoo biira channelka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.